qaraxii ka dhacay xarunta dawladda hoose waxa uu geystay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac hoolkan iga dambeeya ee muraayadihiisu muuqdaan waxa burburiyay oo daaqadihii burburka idin muuqda u geystay qaraxii ka dhacay hoolka gudihiisa iyadoo shirka soconayo dad goob joogayaal oo ka tirsan shaqaalaha gobolka Banaadir ayaa nala hadlay waxayna xaqiijiyeen inta ay arkayeen dhimasho iyo dhaawac oo iyagu ay kor tageen waxa warbaahinta loo diiday inay u galaan gudaha xarunta dawladda hoose ee Xamar iyadoo muddooyinkii dambana wariyaashu ay la kulmayeen cadaadis ku aadan inay helaan muuqaalada goobaha ay qaraxyadu ka dhacaan si bulshada loogu bandhigo qofka ka tirsan shaqaalaha dawladda hoose ee nala hadlay ayaa sheegay in jawigu wanaagsanaa inta uusan qaraxu dhicin laakiin markii qaraxu dhacay ay goobtii isku bedeshay dhimasho dhaawac iyo dhiig sidaas oo kale qiiq ayaa soconaya sidoo sheegay oo maxaan ku raahdaa la suuray karo ama maxaan ku raahdaa qof meesha joogay oo maxaan ku raahdaa si la rabo u sheegi karo ma ahan maanta waxay maalin Arbaca ah waxa socday shir kamid ah shirarka ugu muhiimsanaa ee dawladda hoose ee Xamar iyo gobolka Banaadir shirkaas oo toddobaadla ahay shirkii oo meel bartama ah maraya ayaa maxaan ku raahdaa hal mar waxa dhacay qarax iyadoo daqiiqad ka hor ay jawigu aad u degan oo dadku maxaan ku raahdaa ay ka doodayeen su'aalihii iyo isweydiinayeen maxaan ku raahdaa wax qabadkii iyo maxaan ku raahdaa activity-gii maxaan ku raahdaa gobolka Banaadir iyo dawladda hoose Xamar ayaa hal mar waxa dhacay walax aad iyo aad maxaan ku raahdaa looga argagaxo xaqiiqatan uma sheegi karo ma korbay ka soo dhaceen ma dhulkii ka soo baxeen ma qof ordaayay ma garanay xaqiiqatan laakiin dhibaato aad xoog la ka dhacdo meesha sidaan arkayno jirkaaga dhiig iyo dheecaan waxba ku daadsan dadkii kula fadhiyay inta aad xasuusato yaad aragtay dhaawacooda ama dhimashadooda walaal dad badan baa dhintay agaasimayaal baa dhintay gudoomiyaal degmo ayaa dhintay inta aan ka xasuusto Allahu naxariisto dadka qaar waxa way cod carabkayga kuma sixi karo xaqiiqatan sida aan isku ahayn iyo xaaladda aan daqiiqad ka hor daradeed agaasimihii shaqaalaha dawladda hoose ka mid ahay waxa kamid ahay maxaan ku raahdaa gariiqaankii maxaan ku raahdaa sharcigaankii la taliya xagga sharciga ee dawladda hoose ee Xamar oo ka taxan sabriye Allahu naxariisto gudoomiyihii degmada maxaan ku raahdaa waa bari asigana waa aan xaqiijiyay sidoo kale waxaa naf dhib lagu qaado nolol iyo geeri aan sixi karin afayeenkii hore gobolka Banaadir haddana ah agaasimaha guud ee nadaafadda ee maxaan ku gobolka Banaadir Cabdifatax Umar Xalane sidoo kale waxa asgan naf dhib lagu qaaday in la yiraahdo agaasime caaqil maxaan ku raahdaa dad badan ayaa maxaan ku raahdaa saas ah jiray inta badan maxaan ku raahdaa qarax markii uu dhacay muddo 10 daqiiqo lama sixi karin sida waxa dhacay iyo maxaan ku raahdaa wax nool iyo wax dhintay biqiiq ayaan qariyay dadka intooda badanna maxaan ku raahdaa waxa meesha ay ka baxeen anigu halkii aan maxaan ku raahdaa isku tuurayo in gudaha lagu jiraan dareemay aan u maleynay waa istuuray waxaan ku raahdaa qof aan wax iska dhigay markii hore dhintay dan markii qiiq yaraado aan arkay in ay xaaladdu ay maxaan ku raahdaa aysan gudaha aysan hadda markaas wax ku jirin laakiin wax dhacay uun ahayd xabadana kan xabad ay ka dhacayso ayaan soo kacay dadka ugu horeeyay oo marka indhahaygu qabteen waxay ahayd dadka saaxiibaday ahay shaqo wadaaga iyo maxaan ku raahdaa aan ahayn dharar wadaaga marka intaas baan maxaan ku raahdaa dhaawac ma aragtay gudoomiye Yirisow waxana loo sheegay inuu dhaawac yahay adigu ma aragtay wallahi ana ma sixi karo ma sheegi karo waxa ay tahay ma sheegi karo indhahayga kuma arkin aniga xaqiiqatan ilaa iyo hadda dadka geeriyooday ee la hayo waxa kamid ah gudoomiyihii degmada waa bari gudoomiyihii degmada Cabdicasiis iyo dad kale oo aan weli la xaqiijin oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir waxa kale oo dadka dhaawaca ku jira gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yirisow iyo dad kale oo ka tirsan maamulka iyo shaqaalaha gobolka Banaadir wararkan wixii ku soo kordha iyo faahfaahinna kala soco goobjoog cali aadan muumin ayaan ahay oo idin kala soo hadlaya afaafka hore ee xarunta dawladda hoose ee Xamar